TikTok waa bar bulsho tan ugu kobaca badan adduunka. Waa bar muuqaalada lagu wadaago ay isticmaalaan dhalinyarada. Waxaa jira dhinac kale oo si fiican loo aqoon ay bartaan bulsho leedahay. I love you guys so much and you guys are amazing. Waa muuqaal toos u socda. Marka aad haysato kun ku taageersan ama in ka badan ayaa si toos ah wax ugu tabin kartaa dadka kugu taxan. Dad badan ayaa marmarsiya uga dhigta inay u dhawaanayaan taageerayaashooda, balse waa meel kuwa sameeyay bartaan ku weydiistaan lacag. Remember, if you are the next person to click that gift box and send a concert, you get a follow. Qaar ka mid ah astaamahan waa santiyo, balse tan ugu qaalisan ee inta badan la raadiyo waxay ku kacaysaa $62. Drama queen! Oh, the drama queen! Ka jawaabista muuqaalada, isla shaqaynta iyo qaybinta waa sida joogtada ee wax lagu helo. Instagram ayaa toddobaad toos idinkula hadlaya. Balse qaar ka mid ah taageerayaashu waxay qabaan in lagaga faa'iideysanayo iyadoo la adeegsanayo farsamooyin iib oo xad dhaaf ah. Haddii aad mid kale soo dirtaan, waxaad helaysaan nambarkayga. Waxaan la hadalnay gabar 12 jir oo ka timid waqooyiga England oo aanan doonayn in muuqaalkeeda la arko. Hal mar oo toos lagu arko ayaa $125 TikTok siinaysa. Telefoonkiisa ayaa loo ballan qaaday, balse waxay sheegtay inuu dhowr fariin oo kaliya ka soo jawaabay. Sebastian Mo codsigeena kama uusan jawaabin, mana ahayn qofka kaliya ee hadiyad ay siiyaan kuwa adeegsada TikTok. waxaan qabaa inay ugu dambeyn noqonayso $400 marka la wada sheego. Barber waxay aad saartay TikTok in ay gabadheeda 12 jirka ka dhaadhiciyaan oo ay lacag kaga qaateen 2 muuqaal oo toos loo tusiyay. waa inay ka fiicnaadaan dadka waaweyn, waana in da'yarta si wanaagsan u ogaadaan inay tahay inaadan lacag la weydiisan. walaalaha Nafeti ee Blackburn waxay hadda leeyihiin 2.5 milyan oo taageerayaal ah. Muuqaaladooda tooska ah waxay ku helaan ku dhawaad $300. kuwa ugu badan ee hadiyadana siiya waa haween 30 jir ah. ma jeclin markaa hadiyad nooga timaada qof da'yar. waxaanu weydiinaa in waalidkood og yahay. ma joojin karno. shirkadda Shiinaha ee TikTok waxay sheegtay in ay ka xuntahay qaar ka mid ah wixii aan diiwaan gelinay. iyagoo soo xiganaya baaristeena ayuu afayeen u hadlay TikTok sheegay inay sii xoojinayaan adeegooda iyo siyaasadooda.